السلام عليكم أغيارته ميل كستا جوجتان كسو دوادا sheekadeenii xiisaha lahayd ee qalbi jabay oo xilligan oo kale inoogu barateen sheekada qaybtii hore waxa ay inoo maraysay cabdiraxmaan wuxuu fadhiistay kaligiis wuxuu si hoose u yiri kalsoonidii way luntay dhanka kale Sahra waxay oysay weli waan ku jecelahay laakiin waan luminayaa kuna soo dhawaada qaybtii 12 fadlan share like comment ga dhiirigeliya ayay tahay season 1 subax muruga leh subax cusub ayaa timid laakiin qalbiyadii waa kala daadsan yihiin cabdiraxmaan wuxuu istaagay daaqada hortiisa isagoo eegaya banaanka maskaxdiisa hal fikir ayaa ku wareegaya waxay iga dooratay nolol kale wuxuu qaaday neef culus waxa laga yaabaa inaan iska iloobo season 2 Sahra oo la qabsanaysa xaaladda Sahra waxay la fadhiisatay hooyadeed hooyo wax walba si fiican ayay u socdaan waa inaad faraxdaa Sahra waxay ku qasban tahay inay dhoola la cadayso laakiin qalbigeeda waa uu diiday season 3 Faisal oo xakameynaya xaaladda Faisal wuxuu si joogto ah ula xiriirayaa qoyska Faisal waxaan rabaa in Sahra ay si buuxda uga go'do wixii hore adeer hawalwalin waan ilaalinaynaa Sahra waxay dareen in nolosheeda la xakameynayo season 4 cabdiraxmaan oo go'aan qaadanaya cabdiraxmaan wuxuu la kulmay aadan cabdiraxmaan waxaan go'aansaday inaan ka baxo magaalada aadan maxaa cabdiraxmaan halkan wax iguma harin indhihiisa waxaa ka muuqday muruga iyo go'aan isku dhafan season 5 Sahra oo ogaanaysa saaxiibada Sahra ayaa u sheegtay cabdiraxmaan wuxuu qorsheynayaa inuu baxo Sahra qalbigeeda ayaa si xoog leh u garaacay maya taasi ma dhici karto season 6 isku daygii ugu dambeeyay Sahra waxay isku dayday inay wacdo cabdiraxmaan wicitaan laakiin cabdiraxmaan ma qaban wuxuu go'aansaday inuu ka fogaado si uu naftiisa u badbaadiyo season 7 fariin aan la dirin Sahra waxay qortay fariin dheer cabdiraxmaan fadlan ha tagin weli wax walba ma dhammaan waxay eegtay fariin ilma ayaa ka qubanaya laakiin ma aysan dirin season 8 cabdiraxmaan oo diyaargarow sameynaya cabdiraxmaan wuxuu bilaabay inuu xirxiro alaabtiisa qolkiisa wuxuu noqday mid madhan wuxuu helay wax yar buugii Sahra uu mar ka qaado
wuxuu si tartiib ah u qabtay wax walba waxay ka bilaabmeen halkan. Season 9 Sahra oo la dagaalamaysa qalbigeeda. Sahra waxay istaagtay kaligeed. Ma aamusi karaa mise waan dagaalamaa? qalbigeeda wuxuu ku yiri tag jacaylkaaga badbaadi. Season 10 tallaabo geesinimo leh. Sahra waxay go'aansatay, waxay qaadatay jaakad waxayna u dhaqaaqday bannaanka. Waa inaan arkaa ka hor inta uusan tagin. Season 11 laba wado oo kala baxaya. Cabdiraxmaan wuxuu istaagay goob uu ka raaci doono safar. Wuxuu eegay saacadiisa, waqtigu waa yimid. Dhanka kale Sahra waxay ku socotay si degdeg ah dhankaas. Season 12 dhamaadka qaybtan. Cabdiraxmaan wuxuu qaaday tallaabo si uu u baxo. Isla waqtigaas Sahra waxay soo gaartay meel u dhow, laakiin ma isku arki doonaan waqtiga saxda ah. Dhamaad xalqadii 12aad. qaybta xigta. Sahra ma gaari doontaa Cabdiraxmaan? Cabdiraxmaan ma baxayaa? jacaylkoodu ma badbaadi doonaa? akhyaarta muuqaalka fadlan isku daya in aad meel dheer inoo gaarsiisaan. sheekada maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii xiiso badnaanaysaa qaybtii hore. mahadsanidin.